intooda badan waa diiday adduunka waa laga tagaya adduunkan waa laga tagaya fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yani muxuu ahay maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaaladu waxay doonayso oo ilaahay raali gelin kara marka maanta fursad baad haysataa war ummadan diinta islaamka ku dhaqan iskuulkan barwaaqo iyo jaamacadiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama jibadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadowa islaamka muusow madaxweyne muuse horta xillimuu madaxweyne muuse u noqday CAD bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar shaqeyn maysto adduunka ka joogtaan aad iyo aad baan idin sanaa walaalkan cali jaan waa mar labaad iyo kulanti wanaagsan ummadda Soomaaliyeed kasta adduunka ka joogtaan waxaan rajeynayaa guul iyo gobonimo hadaatay walaalana la jooga waan kaaga mahadcelinayaa hadaatay walaalana ugu soo biray channelka subscribe saar aad iyo aad baad u mahadsantahay ummadda Soomaaliyeed kasta adduunka ka joogtiin mid ay habeen tahay mid ay maalin saaba waxaan u rajeynayaa waqti fiican insha Allah keena dibana Allah dhibta ka maanta waxaan ka hadli doonaa Cabdimaalik Muuse Coldoon waa wiil Soomaaliyeed oo laga qabtay ama ku xidhan dalkiisii hooyo gaar ahaan magaalada Burco bal marka hadda wiilkan Soomaaliyeed ee la xidhay Cabdimaalik Coldoon ummadda Soomaaliyeed aad u taqaanaa waa nin wariyaa waa nin dadka masaakiinta inta badan dadka u dhaqdhaqaaqa kamida waa nin shaqadiisu xaqiiqatan meel qurux badan ay ku salaysan tahay oo siyaasin ahayn waxyaabo qaran ahayn laakiin inta badan wuxuu ka hadlaa kulay waxyaabaha ku salaysan diinta bal marka hadda wiilkaas isdul taagi doonaa oo macnaha lagu xidhay loona xidhay eedeymo uu soo jeediyay meelo kamida meelaha waxbarashada ay ka furan magaalada Hargeysa taasi uu ku eedeeyay inay macnaha waxyaabo qalada ay meeshaasi lagu faafay labka wax ka daya ama hungureeya iyo dadiga wax ka daya ama hungureeya dadka noocaas bay inoo keeneen dadkeenii bay ku sii dhexdaayeen oo ay uga dhigeen tusaale wanaagsan intaasaa ku filay oo ay ahayd madaxweynuhuna inuu xisaabta ku darsado intaasaa ku filay inay tahay meeshaasi meelo aan khayr lahayn meelo aan wanaag soo wadin meelo aan wax ummadda islaamka iyo muslimiinta u dana aan lagu hayn haddaba haddaan inagu waxaan ka hadli karnaa oon isku dayaynaa bal insha Allah inaan cadaaladda fiirino oon cidna dhinac aynu saarin way ilaahay baa runta jecel qofna ha u joojin inta runta tii lagu jarayo meeshaad had is leedahay in cadaalad baa jirta hadalkaaguna inuu u bato run ama cadaalad ayaa muhiim ah inagu horta iskuulka ma inaan tagin xaqiiqatan oo qof dhex jooga ma yihiin oo ka xaaladda dhabtay meesha ka jirta meeshan hadda ka sheegi karaa maxkamadna saari kara iskuulkaasi oo maxkamadna ku badbaadin kara Coldoon laakiin Coldoon waxaan ognahay oo kaliya inuu yahay qof ku caan baxay khayrka qof aan ku caan bixin xumaan iyo fusuq iyo balaayo haddaba markaa dhibaatadan meesha jirtay maxaa soo cusboonaysiiyay Muuse Biximaane dhood buu ka hadlay waxyaabo uu ka hadlayna wax kamid ah iskuulka inuu lugihiisa ku tagay Cabdimaalik waa ka daba hadlay oo wuxuu cadeeyay isaguna inuuna Muuse Biixi ama madaxweynaha inuuna meeshaasi wax xog ah aanu ka haynin laakiin xogta oo aan Cabdi Muuse Coldoon ka ay ka badan tahay xogta oo hayo meeshaasina ay dhibaato ka jirto dalkeena iyo dhalinyarteena waa dhibaato ku yihiin haddaba xaqiiqada dhabtii waxa weeye han ku horeyno marka hore madaxweynaha iskuulkan barwaaqo iyo jaamacadiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama jibadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadowa islaamka ayaa waxay ka fidiyaan warar aanay hubin waxay yihiin taasi waxay u kaliftay inaan tago dugsiga abaarso oo shaqaynaya anigoo keligeeya oon ciidana socon oo gaaro yar wata si aan u ogaado waxa ka socda waxaana soo taabtay in iskuulkaasi ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay islaamku u baahan yahay madaxweyne Muuse Biixi isaga hota wadankan xukuma meeshana isaga xukuma isaga mas'uul ah taas cid u diidani ma jirto Muuse madaxweyne Muuse horta xillimuu madaxweyne Muuse u noqday CAD Muuse Biixi waa madaxweynaha dalka haddii meeshan uu rabo inuu xogteeda ogaado wadooyin la maray leedahay dad baa isaga u shaqeeya oo CAD ah
marka haddii meeshani ay jirto macnaha inuu rabo inuu baadho oo si cadaalad ay ku jirto u baadho marka cabdi muuse coldoon meesha la iska dhigo waxa qurux badnayd in loo baadho si madax bannaan dad aanan ku salaysnayn siyaasad iyo iska daboore iyo quran oo bulshada ka mid ah oo nadiif ah culimada waddanka joogta ee ummadan culimada u ah dariiqa toosanna la rabo inay ku hagaajiso oo qayb ka mid ah wasaaradda waxbarashada qayb ka mid ah intaasi oo ka madax bannaan ee macnaha dowladda in loo diraaheed meeshana la baadho xaqiiqadeena bannaanka la keeno haddii markaa wax dembiya lagu waayo cabdi muuse coldoon in la soo xidho maxkamadda la taago dembiga lagu qaado laakiin intaa lama sameeyay muuse wuxuu lugahaygan ku tagay soo jaamacadda barwaaqo khawd badan meeshana waxba kama jiraan nimankaasina been bay sheegaan intaasoo dhan mustaba dhigay iskuulkan barwaaqo iyo jaamacadiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama jibadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadowa islaamka ayaa waxay ka fidiyaan warar aanay hubin waxa yihiin taasi waxay u kaliftay inaan tago dugsiga abaarso oo shaqaynaya anigoo keligeeya oon ciidana socon oo gaadho yar wata si aan u ogaado waxa ka socda waxaana soo taabtay in iskuulkaasi ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay islaamku u baahan yahay kuma haysano madaxweyne daleed wax badan buu awood u leeyahay laakiin waxani waa dalkiisii waxani waa ubadkiisii waxani waa kuwa maalinta yoomal qiyaamaha la qabsan doono isaga loo qaban doono cabdi muuse coldoon waa la soo xidhay jeelkaa la dhigay waxaana lagu dhigay muusow waqtigu waa gaaban yahay waana dhimanaysaa anna waan dhimanayaa walaal madaxweyne xaqa ka hadalo meeshan waxaa ka duwan baa yaalee arrinkan wax ka qababa cabdi muuse maanta coldoon ku xidhan yahay waa intaan ognahay nagu intaanaynu ogeyn allaha qafuuru raxiima ayaanu deynaynaa bal marka haddaba inagu waxaan inta badan ku doodnaa inay cadaalad aan leenahay uu qofku xor yahay uu hadli karo cadaaladana uu sheegi karo afkiisa iyo afkaartiisana qofku xor u yahay intaasi miyay jirtaa maanta waa may bulsho waxba uma sheegi kartid haddaad u sheegtana waa lagu xidhayaa cadaalad kama hadli kartid oo haddaad cadaaladkaada soo tiraa meeshan cadaaladi ma jirtee saasaa jirta waa xadhig xorriyatul qowl kama hadli kartid oo afkaartaada xor uma yihid cabdimaalig ma ahayn nin qorisita cabdimaalig ma ahayn siyaasi afkaar buu soo gudbay wuxuu war meeshan qalad baa ka jira qaladkaasi waa in la saxo weliba anaa saxaya muudhana wuxuu madaxweyne sax maanta adoo waajibsaanay maanta intaas uu xidhay allahu naxariistay maxamed siyaad bare waxyaabaha lagu eedan jiray waxaa ka mid ahaa inuu qof qallafsanahaayo afkaartii wixii isaga ku jira inuu adeegsado wixii kasoo horjeedana u ka siin jiray taasi buu muuse bixi intuu soo istaagay uu yidhi anugu mar raba taasi waxaan rabaa cadaalad ka duwan taasi oo dadkii waxaa diiday buu ka mid ahaa isaga iyo maanta maxamed siyaad bare allahu naxariistay maxay isdhaamaan waa macallin iyo ardaygii wax isdhaamaan ma laha maxamed siyaad bare wuxuu diidanaan jiray inuu qof wuxuu sheego muuse bixina wuxuu diiday inuu qof wuxuu sheego ama wax isaga waxaan isagu fulin oo isagu amarkiisa lahayn inuu ka hor yimaado ama erey laga sheego ama wax laga sheego marnaba xaqiiqatan marka cabdi maalig coldoon hadaba muxuu baahan yahay cabdi maalig coldoon maanta uu xidhan yahay wuxuuna u xidhan yahay muuse bixi isaga waddankan xukuma ciduu doona uu xidhay ciduu doona uu sii deynaya marka horta sii deyba maaye cabdi maalig coldoon maxkamadda hadaba uu u baahan yahay ee meeshan taallaa waa maxay hal maxkamad baa cabdi maalig coldoon maanta u baahan yahay maanta cabdi maalig coldoon in dowlad loo baryo oo hebelowna sii daleedhaa uma baahna cabdi maalig coldoon wuxuu u baahan yahay maxkamadda shacabkiisa dadkiisa soomaaliyeed ee waddanka iyo dhalashada iyo dhiigga la wadaaga ayuu maxkamadooda u baahan yahay dadkaas u baahan yahay inay u hiiliyaan oy xaqana ku adimaan xaq daradana ay diidaan annagu qofna xaq darro xaqiiqatan ma jeceli inaan qofna xaq darro ku taageero laakiin cabdi muuse coldoon waxaan anugu ku taageersanahay waa qof carabkiisa ka hadlay bas qorina muu qaadan xabad ma qaadan xisbi muu doni mudaharaad muu samayn cid kale lama socoto only one person waaye wuxuuna yidhi war waxani meeshani waa qalad baa ka jira madaxweyne sax ama ummaday sax qaladkan waa ansixi karnaa dhalinyarteena iyo dadkeena ay ku qoton tahay mustaqbalkeena ay ku qoton tahay meeshana waxaan ka bedelno
intiibuna maanta ku xidhay taasaa markaa u baanay marka ciddii soo xidhay cadaalad miyuu ku helayaa may cadaalad kama helaya ciddii soo xidhay waxa weeyaan iskuulka muuse bay xuquuqday oo kale weeyaan iskuulku wuxuu leeyahay wax xun baa dhignaa wax fiican baa dhignaa buu sheegaya soo ma taasoo kale weeyay imigana dowlad iyo dad cadaalad uu ka helayaa haba yaraatee muuse cabdimaalik oo loogu ooya haba yaraatee ma jirto ummadan dhiigga leh uu ka dhashay ee dhaashay iyo macnaha diin iyo dhaqanba uu ka soo jeedaa loo baahan yahay cabdimaalik inuu sarakaado taasaa loo baahan yahay cabdimaalik inay cadaaladooda mariyaan cabdimaalikna ay kasoo saaraan godka lagula jiro iyo meesha lala maray xaqiiqatan ma ahayn isagu dad fara badan oo cadaalad u baahan baa jira oo cabdimaalik oo kala oo miskiin oo kala marka cabdimaalik wuxuu cadaaladda uu ku heli karaayo kaliya waxa weeye shacabkiisa oo cadaaladda fiiriya oon ka habran qof madaxweyne ah oo cadaalad darra ku kacaya shacabku waa ka madaxweynahan keenay meesha kaasa cadaaladiisa cabdimaalik uu baahan yahay inaan cabdimaalik lagu eegtana ma xaqiiqatan ereyadii ugu dambeeyay ee maalintii la qabanayay cabdimaalik uu lahaa waa kuwan adduunkan waa laga tegaya fursad baad haysataa dahabiya maanta ilaahay wuxuu kaa dhigay ama maanta ilaahay madaxweynaha wuxuu ka dhigay yani muxuu ahay maanta qof ka talin kara oo go'aamin kara oo diidi kara gaalada waxay doonayso oo ilaahay raali gelin kara marka maanta fursad baad haysataa war ummadan diinta islaamka ku dhaqo war wixii diinta islaamka la dagaalamaya ummadan ka qabo war la garan maayo goorta uu geeridu imanaysa way soo dhawaatay inugu soo wada dhawaatay khaatimo wanaagsan adduunka kaga tago weliba madaxweynuhu khaatimo wanaagsan kaga tago ummadan khayra kaga tago la garan maayo inta lasii noolaanaya rabbigaa la kulan adoo ummadii islaamka kaga tegin laakiin ha kaga tegin adigoo muxuaha siinaya garab muxuaha xarumaha noocaasa intaas ayaan kusoo gabagabaynaya madaxweyne waa la dhimanayaa waqtiguna waa iskurayaa dadka iyo dalka waxaad uga tagtaa diin uga tag intaa ninka cid ku xidhay ma waxaad ka filaysay inuu cadaalad intuu sameeyo soo sii daayo wax dhacsa maaha markaa shacabka ayaan ugu baaqanaa ninkan maxkamadiisa inay saaraan ninkanna laga soo sii daayo meesha dadka shacabkaan ugu baaqanaa ummadda islaamka inay ninkan meesha kasoo sii daayaan iskuulkanina waxaa loo baahan yahay in loo diro khubro madax bannaan oo ka madax bannaan dowladda oo culimada mideelada culimada waddanka joogtaa maxay ka qabanayaan meesha waay shalaytole wax la hadlayay rag iyo maxaan ku dhaha rag isku tegay baa la hadlayay kaniisad baa la hadlayaa oo meesha jirto oo nool oo meesha furan oo cid xidhi kartaana jirin ama cid ka doodi kartaana jirin rag dhalinyar Soomaaliyeed baa laga helay meesha oo iyaga iyo isku jinsiyoos ku mid ah maxaan ku dhaha nin iyo naag iska dhigtay war maalin rogaya waa maxay rogmadkani aaway macna dhaqankii iyo diintii iyo kala dambeyntii iyo islaamnimadeena aaway culimadii aaway dhalinyartii aaway ummadii Soomaaliyeed waxaan diidi jirtay aaway xagee marin dadkeena xagee qabteen waxaan aan diidaniyo waxaan wax dhalinyaro aan qaadan karan maahayne intaan ilaahay ka cabsano qof siyaasi ama qof tan inuu nagu guuro maahayne anu madaxtinimada ninkan kuma haystee laakiin waxaan ku haystaa xaq darradu ma wanaagsan ilaahayna ma jecla xaq darro waxa Soomaaliya baabisay intaayna dhigtay ee dhalinyarteennii iyo dadkeennii iyo ummadeennii oo dhan maanta adduunyada meel kasta ku dacdaraysan waxayna dhigtay waa cadaalad darro war dadkan cadaalad bay u baahan yihiin ninkan wuxuu u baahan yahay cadaalad in loo saro kaco dugsigana wuxuu u baahan yahay dad madax bannaan oo culimo oo dhaqan iyo diin iyo islaamnimo ku abtirsada oo dawladna ka baqan cidna ka baqanin in la baaro oo hadii meeshan ay fusuqan uu ka jiro meesha albaabada in loo laabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.